qaar ku tirsan xildhibaanada lamada gol ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba isu guud ahaan ku hadalana xaaladda gobolada Soomaaliya gaar ahaan iyo markaas ku hadalan gobolada koonfurta Soomaaliya waliba soo kale ku hadalana dhibaatooyinka xilligan ku jira gobolka Shabeellada Hoose xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo markaas ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo waliba soo ku hadalay dhibaatooyinka ku jira gobolka Shabeellada Hoose cabashadii dadka ay u jeediyeen tiitu la mid ah ayaan shalay iyo ka sii daran ay odayaashii halkaan aan u nimid ayna siiyeen warbixinta reer afgooy waa ogtihiinoo tabar kale haddaysan haynin laakiin afka ma ka tabar darna bay dhawaan jeedee hallolayno deersi adheew lama jeer buu shariifku waa ognaa dhowr jeer ninkooy hatana waxaa la dhahaysaa ninkii qori haystaa quudkiisa helaayo haye weliba qadadiisa iyo quraacdiisa qaadkiisa u dheer marka xaggana hadday taa taallo meeshaana markaan nimid xoogaa amay dhaamaanan lahayn shalay markaan dhagaysanay odayaasha iyo waddadan wixii laga sheegay annaga tii xaggana maraysay baar ismaaciil oo baraaba aadaysay iyo ilaa ay wanlaweyn ka warhaynay waxyaabihii odayaasha noo sheegeen runtii waxay isoo xasuusisay shir dunida muslimka mar lagu qabtay Khartoum oo xilligii Bosnia oo si xun maartay loo laynay muslimiinta ayaa dadkii iskugu yimid kontonkii adiga iyo dhowr dawladood oo ka tira badnaa dunida muslimka ninkii hadlaba waa cabaad leh ninkii hadlaba cabaad leh qola kale dhaanta ayaa loohay kii Bosniyaanka ugu dambeeyo asaga dagaalka wadankiisa iyo dhibaatada iyo waxa lagu hayay gumaadka xanuun ku hayay ayaa wuxuu lahaa soo bandhig si dadkan waxa adinka aad reer Bosnia aad qabtaan aad u sheegtaan ninkii markuu arkay qofka kale inuu ka daran yahay waxa ku jirtay khudbadiisa oo cajiib ahayd jiitu min baladi waxaan ka imid wadankayga ama beledkayga wa ana ahmilu humuma baladi anigoo wata murugadii dalkayga dadkayga laakiin saauudu ila baladi hada laakiin waxaan u laaban doonaa wadankayga wa ana ahmilu humum almuslimiina jamii'an anigoo murugadii muslimiinta dhan aan xambaarsanahay ayaan wadankayga noqonaya aniga hadda murugadii Shabeellaha Hoose tii afgooy ana wataan imid tii koonfur galbeed oo dhan aan watayaan la noqonaya xamar waxaan meesha aan ku aragnay ana oo si sheegayna waan u sii hormarinayna dawladda dhexe ha qaadato ameysan qaadanin dawladaha hanti wadaaga ayaa waxay qaban qaacida marka kacdoon uu kacay calaamooyin lagu garto dadka markay dawlad dictator ay haysato oo ay cabran yihiin oo awood isbidaysa markaasi dadka waji kadkadood ay bilaabayaan wajiga laga nacaa markii la arko madaxdooda indhaha la saas leeyahay waa la fiirfiirina lisaan marka dambe waxa ku xigay leer gunuuna wallahi sida ma kaysan kara wallahi waxaan wax socon kara ma wallahi sida tan allahay ka allah ma jirto sabri ma shaaqanta marka saddexaad waxa infijaar dhacay waxa loo arkaa madaxweyne gurigiis loogu soo galay marka goor dadkii ay kaceen iyo dhibaatadii iyo mushkiladii ani sheekada meeshan ka socod hadii la dhaafo waa in xamar gaardi lagu soo galay saasoo kale waliba meelo ku hadalay Cabdullaahi Cabdi Garuun oo isina ku tirsan xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya saasoo kale ku hadalay dhibaatooyinka ku jira gobolka Shabeellada Hoose saas oo kale boogaaday maamulka koonfur galbeed wal qabadkii waana oo kale ku hadalay arrimo fara badan ee ku mid ah xirnaanshaha wadadan dhaxayta magaalada Baydhabo iyo Muqdisho lama ku itum ilmaadi markii madaxweynaha ka hor la dooray Xasan Sheekh wafdigu haraya ka jarian geedku hoggaamiyo Abdullahi Yusuf yaan diji geed inta iriina ka tahan durgaan guray marwo meelo kuraasan leen durkiyaay anta leen durkiyaay marwo inta tahan xafadada lahayd meel fadhada ma lahayd hakutab haddana markii baarlamaanka si oo gudoomiye la dooray haddana ku qeyb galnay meel hag baarlamaanka leen dhisi golaha shacabka yaa haddana harata la soo baxan kuleel badan يهون السوق هذا المركي حسن شيخ ميل ما هكجيديه ميل بدنا لك شري خير كفر قلبينه نصيبك إنسان توكدان عندي أرجعوا يا
martii qoyti lan walba gursheer diji oo ngaare usiye matana walil soo sa sharaf la ka dhawaa ما يدري هذا إن شرر بدن لك أبدا تدوك شرر كترت بايم أما بلون ملون لا هاتو أما وراك الله كقول ما هاتو بلد كشرف قته ما كان قته ما كقول ما كترت بايم هذا بيرو كل شيء ولا هرورة تدود كده لا كي قال لا ولو بالله مليو هلو مسألة سود وين تيتين يهجان كي وناكسن يا كسور تقال على التاس حديث سود وين تين فاين لها شعبي هلا باندي إما هذين سي هجان ميازو حديث أن الله سود وين وناكسن ما يلهاي بينو الأرض كده جيسوا هذن بينو مرور قرية ترتيب وصلي هذا له كل لا تروح بهاي ما اللي جابه ملاب هذن ما يلهاي قريال كل نسي ميل جفاو إيميل وشان قال ونكشر نمكان أرجع وابو سيدور يا أبي أنا يا دكتور مقطع تبشرت ولا يا هربينو هربينو إسكرينانتين إسين يوم هذا يحل باندينا إيش عبدينا سو دوينتين مرتقلينتين ولا شرك هذا اللي أبغاه هاي تذكر شر نمدي تردما يعني سين دتاكي سين تردما هاي من نمدي ولا يهجان يا ويلي ورأس قدوم هذا أتكايا هرن سيوده أهنتا ما كم يبغاه إن شاء الله ما الرأي بلد كان بلد وناس واي حد لك السيدار أو متانا وليارها لما حد تلابك على سيك آدم ما يبصروا تأني سوما دون متانا سين هريان هناك xildhibaanadan iyo waliba qodobadooda ku jeediyay kala fadhiga shanaad ee weeldhadayeen baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Saad Cabdullaahi Fani TV koonfur galbeed magaalada Baydhabo